isku noo fura qolka guusha dowladda islaamiga ah qolka guusha dowladda islaamiga ah waa dhalinyarada qurbaha isugu timid aaladda internetka oo nabada jecel waaye barnaamijkan caawa qolka daadiina marka kaasi waxa uu ahaa afayeenka dowladda cabdi xaaji gordon oo soo jeedintii golaha wasiirada ee maanta saxaafadda u akhriyay ayuu diyaar waa tahay okay diyaaraan ahay diyaar dhegeystayaal aaladda internetka oo dadka Soomaaliyeed ay weliba si weyn uga qayb qaataan iminka waxaa dadka si toos ah ugu jira dhalinyaro Soomaaliyeed oo weliba meelo kala duwan jooga baaltooga ayay dhalinyaradaasi waxa ay iminka ku urursan yihiin qolka guusha dowladda waxaan idinku wareejinayaa saaxiibkay Cali Jarmal oo isagoo Jarmalka jooga ka hagaya aad iyo aad ay umahadsantihiin waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa aaladda internetka qaybta baaltooga Soomaali iyo dhan oo qurbo joogta Soomaaliyada nabada jecel ayaa ku wada jirta qolkan waxaan jeclahay anaga oo aan ka tiiraysan amuurtii ka dhacday hotel Shamow inaan halkan tacsi uga gudbino eheladii dowladda iyo dhammaan dadka muslimiinta ah oo halkaas ku xijaabtay waxaan jeclahay inaan marka hore aan u gudbo maamulka qolka inaan idinku wareejiyo si halkaas uu barnaamijka si toos ah nooga hago dadweynaha Soomaaliyeed oo nabada jecel waxay ku kala duwan yihiin adduunka dacaaladiisa waxaan jeclahay inaan si toos ah qadka ugu gudbiyo nabado oo noo hagi doonta barnaamijka qaybtiisa kale assalaamu calaykum nabado ku soo dhawaaw barnaamijka raadi muqdisho si toos ah uga baxaya caawa marka soo qabsada microphone-ka marka halkaas noogu sii wada barnaamijka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan u tacsiyeynayaa dhammaan ardaydii dhaqaatiirtii siyaasiyiintii mas-uuliyiintii dowladda iyo waalidiintii ku naf waayey qaraxii arxan darrada ahaa ee ka dhacay hotel Shamow waxaan uga tacsiyeynayaa ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogaan khaasatan dadkii iyo eheladii ay ka baxeen dadkaasi annagoo aada uga murugaysan waxaan ka soo hadlaynaa aaladda internetka baaltooga qolka guusha dowladda assalaamu calaykum السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن هالكن روا إن أنا قلت تعسيدي أنا مقعد واحد اللي يراهدا مدن عباس وعن كنا ولا ودنا كهولن وعن روا إن أنا تعسي أنا وديرو هالكان dadki ku geeriyooday hotel Shamow waalidiintii dhalay ilmaha iyo dadkii wasiiradii ku geeriyooday ee ka tirsanaa maaragtay xukuumadda waxaan leeyahay ilaahay jannatul firdaws ilaahay idinka waraabiyo ehelkii aad ka tagteena samari iimaan Allah idinka siiyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا وها عبد الباري كانوا من دتك قرب جوجة كان سو هذا يدلك النرويج وحن تعسي تيران الدرا وزيردي يحلما وزيردي أرضيدي أغويهندي هالكاس كل روح بحضي وحن لنا هاي الله نحرستي جنسيو وحين ودنتين على كودي يدات كودي أيقو جدنا واجب خرمية وحن لنا إن شاء الله إلهي نحرستي جنسيو كوي نفك جيستنا إلهي سبحانه وتعالى جسده هسيو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا جمعة كسو هرلايو ودن كنوروي waxaan halkan taasi tiiraanyada uga diraa ummadda Soomaaliyeed wasiiradii ay ka geeriyoodeen ayaan taasi u dirayaa waxaan ilaahay uga baryaynaa in aakhiro jannada ilaahay ka waraabiyo waxaan taasi u diraynaa ardaydii ku dhimatay qaraxii isnidaaminta ahaa marka waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed taasi tiiraanya leh gidigeena aan la wada ooyne ayaan heshay ilaahay waxaan ka baryaynaa birita inayna nagu dhicin tu kale oo sidaas lamid ah ilaahay ayaan ka baryaynaa wadankeena nabad Allah nooga dhigo waana salaamantiin gidigeen salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ta'ala السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعيق وعريف
waxaan ka mid ahay qurba joogta Soomaaliyeed khaasatan kuwooda ku nool dalka Norway waxaan aad iyo aad uga tacsiyinayaa dhacdadii foosha xumeed ee ka dhacday Hotel Shamow waxaan guud ahaan uga tacsiyinayaa ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dawladda ku meel gaarka ah iyo dadkii ehelka u ahaa runtii wuxuu ahaa fal aad u xun oo waxashnimo ah oo aan la aqbali karin oo lagu dilay bulshada indhaheedii lagu laayay marka aad iyo aad baan uga tacsiyadeynayaa aad iyo aad baan uga xunnahay wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعيقو و NBA All Star وحان كسو هالله دلك سويدن وحان تعسي مرقائي تيران يلا أدريا دمان بهوين الصوماليات ميلو بإيجوغان دعادي وحميد إبد او كدعادي دلك الصوماليا وبحي ودنك محان كوراداني جبكي كدعاي وسيردي دكتوردي iyo macallimiintii problemkii xumaa ku dhacay waxaan leeyahay naxariistii janno Allah ka waraabiyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ورسن كنا وطن كيوكي أنا ورسن وحنا كان كسلامة dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan tacsiyad tiiraayan la u dirayaa intii geeriyootay dhammaan samar iyo iimaan Allah naga siiyo waxaan ku noolahay waddanka UK السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhammaan marka hore waxaan salaamayaa wariyaasha raadi Muqdisho ayaan salaamayaa marka hore magacayga waxa la yiraahdaa ليوان عبد الله نور waxaan ku noolahay caasimadda dalka Sweden ee Stockholm waxaan rabaa in halkan uga tacsiyeeyo dhammaan muwaadiniintii ku dhimatay qaraxii ka dhacay xamar ee waxashnimada ahaa waxaan leeyahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala samir iimaan idinka wada siiyo aqoonyahankii meesha ku dhintay ardadii ubaxii wadanka wasiiradii dhammaan waxaan leeyahay Ilaahay samir iimaan naga siiyo intaasaan maaragtay ku soo gabagabeynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaah السلام عليكم أنا كنا ودك UK ده مدلول يرادو وحن أدونك عالنك وحن أدرايات تحسيو ومدة الصوماليات سياسيين توماش كل ما تيارديدي لما أنتود أهلذوذ يعني تحسيو أدرايات سمر إيمان الله نجوا تصير لما أنت يجنا جناد فردوس الله كورابيو أنت مسلم نورن لكن هريده هالسك قاضو dadka dhibka keenaya dhinaca lagala soo jeesto insha Allah iyagana jannada ay galayaan soo السلام عليكم عبد الله اوكي عبد الله waa ku jirtaa si toos ah aad baan idin salaamayaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waan ka xumahay waqtiga oo lagu yar awgiis insha Allah waqti kale oo aan joogno ayaa ka badan dhammaan dhalinyarada qolka waan idin salaamayaa waana kulli qayb baa idinka ahay insha Allah waa kaasa okay aad iyo aad u mahadsan tahay intaasna waxaan jeclahay in aan ka ahayn barnaamijkeena aan ugu talagalnay inaan tacsida aan ku sameeyno Cabdullaahi waa ku soo laabanaya aad iyo aad u mahadsan tahay mudane agaasime waa mahadsan tahay